dhanka kale taliyaha ciidanka booliiska Somaliland gaashaanle sare Faysal Xiis ahna afhayeenka ciidanka booliiska iyo dambi baarista ayaa ka hadlay xariga xogayaha xisbiga mucaaradka ee Wiciid Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax isagoona sheegay sababta keentay in la xiro xogayaha xisbiga mucaaradka ee Wiciid waxaanu yiri markuu leeyahay mahadle markii xigtana waxaanu galabta isugu nimid shirka jiray inaan ka hadalno sifaha sharciga ayaa lagu xiray Maxamuud Cali Ramaax ciidanka booliiska ayaa galab soo xiray waxaa lagu eedeynayaa inuu aflagaado iyo ceebeyn u geystay gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland aflagaadada iyo ceebeynta u geystay waxay ahayd isagu wuxuu yiri gudoomiyaha baarlamaanku wuxuu xiriir leeyahay dad cadow ku ah Somaliland eegata taasina waa faldabeed taasoo ka soo dacwada gudoomiyaha baarlamaanku isagoo shakhsi ah sidoo qabaartiga eedwan ayuu soo dacwooday sifii sharciga uu soo maray ciidanka booliiska loo keenay kiiskii waa la baaray markii kiiskii ku cadaaday waxa ciidanka booliisku dalbadeen in loo soo gooyo warqadda qabashada ama waxa loo yaqaan war of arrest tibaa loo soo jaray galabta la soo qabtay sidoo qabaartiga 29 markii aan soo qabanay aan xirinay Maxamuud Cali Ramaax waan tusnay waan u sheegnay in wararka lagu soo xiray oo lagu eedeynayo article 268 iyo 385 waanu xiray waxaan la horgeyn doonaa maxkamadda iyo xiraaninta awoodda u leh qaadista kiiskaasi waxyaabahan kale uu ka hadlayo Maxamuud Cali Ramaax culimada sharciyaqaanka waxay ku tilmaamaan waxa soo kale waana la foyd anagu ma ogin waxa kale uu sheegay ma ogin waxaan haynaa oo kaliya waa ceebeynta iyo aflagaadada uu u geystay gudoomiyaha baarlamaanka taasana wararka lagu soo jaray taasana ku xiray yahay sifa sharciga ku xiray yahay waxaana la horgeyn doonaa hadii Ilaahay ka dhigo 48 saacadood gudahood maxkamadda iyo xiraaninta ugu doonay